بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dadka meel walbo joogtiin caafimaad waara ilaahay nooga barya. maanta mawduuca rabina ka hadlo waxay tahay afka qalaad waxaa lagu dhahaa burn out micnaheedu waxa waaye qofka markay wax ku bataan oo caburka ku bato ama waxyaabo uusan aweyn ee isdul koraan calaamadaha oo bixinayo ama dabeecadiisa noqonayaan. waxaa jirto nin walbo inuu shaqeeyo inta badan ama arday ama shaqo. waxaa laga yaabaa shaqooyinka oo qofka hayo in muddo badan oo hayo muddo badan waxaa ka waqti dheer subax inuu hal saac galaayo oo kasoo baxay 12 saac ama qaarkeen waxaa laga yaabaa in dhowr shaqo oo isku xigto qabanayaan. marka subax qofka markuu soo kaco oo shaqadiisa soo aado shaqadii markuu ka baxo haddii oo galo nolol routine ama soo noqonayso oo in muddo ah ku jiro waxa ku dhacaya waxaa la yiraahdaa burn out. midaas mid lamid ah iidan waxaa jirta ardayda hadda ka hadlo oo waliba qaas ahaan kuwa jaamacadda dhigto waxaa laga yaabaa inay sameeyaan dhowr jaamacadood inay isku dhigtaan iyagoo rabo markaas barbaleemo badan inay xaliyaan ama isdhahayo haddaatan lacag ku weysid midaas kale ku aad laga yaabo qaarkood in waalidka ee midaan rabaan midaan oo asaga oo rabo so dhigashadaas ama jaamkaas badan oo jaamacadda ay ku jiraan ama noloshaas sirkalka ay ku jiraan qofka waxay u sameynayaan wax la yiraahdo burn out. qofkii wuxuu noqonayaa asagii caadi isku maleeyo markaa wareystid inuu caadi u maleeyo laakiin waxay noqonaysaa waxyaabo badan oo dabeecadiisa ka mid ahaa inay hoos u haraan. maxay noqonayaan marka waxyaabaha ka mid ah ama ha ahaado qof shaqeeyo ama ha ahaado qof arday ah in qof routiinka noloshiisa ee mar walba isku mid tahay oo isku sidii ay u wareeganayso waliba muddo sanado waxay noqonaysaa calaamada ugu horeysa oo la arkayo qofkii waxa ugu horeeya oo sameynaya waxay tahay dadka caadiga inuu ka go'o micnaheedana depression ma nambaradii markay soo wacan uu qabanayay ama dadkii uu ku farxayay way yaraanayaan ama dadku xiriirinayay way yaraanayaan. labo waxa uu imaanayso hurdadii aad u yaraato ama laga yaabo gelinka hore inuu jirto oo saq dhexe soo kaco inta dambe dhan seexanin ama cagsigeeda in waqti dambe intoo seexdo salaad subaxna oo hore ka soo kaco. waxaa laga mid calaamada kale lagu fahmayo maaniskeeda qofkii howlihii uu haayay qaabkii uu haayay ma uu qabanayo wixii professional uu ahay ama uu yaqaanay ama kartidii oo isku ogaay oo shaqooyinka ku qaban jiray aad hoos u dhac u sameynaysaa. haddii uu arday yahay xifdintiisii ama barashadii ama fahamkii aad u yaraanayo. midda kale inta badan lagu waxay tahay qofka si uu ugu dhalanaya walwal ama murugo ama xanaaq tiro badan inuu wax yar hadii la dhaho u dul qaadan karin. waxaa laga yaabaa dadka shaqooyinka ka shaqeynaya ama shaqo in badan oo dheer waqti saacado dheer ka shaqeynayo in wax walba negative ay u fahmaan in qofka markaas madaxda ay u fahmaan inuu iyaga ataagayo shaqo yar hadii lagu soo celiyo inuu u fahmin asaga loogu dan leeyahay waxaa imaanayso in aqliyadiisa ay ku heeraarto wax negative adiga lagu dan leeyahay adiga lagu dhahayaa adiga lagu dhaqmaya iyo waxyaabo la mid ah inuu imaado qofkii. marka waxaa laga yaabaa qofka asaga inuusan iska warqabin oo waxaan u keenayo ama dabeecadnimadan u keenayo ama sifooyinkii hadda soo tilmaamo u keenayo. waxaa laga yaabaa qofka inuusan ogeyn meel ay uga imaaday oosan u haysanin xanuun toos ah ama dhib toos inuu ku dhex jiro. laakiin shaqooyinka routiinka ama waxbarashadan oo intaasoo jaamacadood ama isku qabanayo shaqooyin badan si loo gaaro nin walba meeshuu hiigsanayo waxay keentaa barbaleemo aad u badan oo nafsiyan aad u badan yihiin. xarun ahaan anaga dawo ruux dhibaatooyinkaas iyo kuwo kalo badan oo xalino ama noo imaadaan way jirtaa. laakiin hadda wacyigelin waxaa ka sameynaya waxay tahay qofka bini'aadanka haddii subaxii usoo kaco ilaa iyo habeenkii oo maalin walba isku shaqo si joogto u qabanayo ama isku wax oo haayo haddana waxaa laga sii yaabaa niyadiisana kusii jirto inuu weli meeshii oo raba gaarin ama wixii oo raba oosan sameynin oo weli isku canaananayo gaar waxaa u imaanaya dhibaatooyin tiro badan oo la xiriiro burn out-kan. mawduuca maanta sharaxooyo nolosha bini'aadanka waxay u baahan tahay mar walba inay gaab qaadato. gaabka micnaheeda ma ahan jimcihii inaad jiifanaysid ama wax yar oo waqtiga salaada ama waqtiga cuntada inay tahay. waxay u baahan tahay nolosha in ay leedahay laazim inaa aadid meelo aad ku farxaysid waxyaabo aad samaynaysid si kastoo u orodid si kastoo intaasoo meel uga shaqaysid ama si kastoo intaasoo jaamacadood u baratid micnaheeda maaha inay iyada ku siin karto deganaan iyo inaa adduunka gaaraysid.
ama wixii aragtay aad soo qabanaysid marka mar walba qofka bini'aadamka waxaa fiican inuu tiisa ka fakiro inuu nafsadiisa ka fikiro inuu ka fakaro shaqooyinkan ama waxbarashadan kugu daba dheeraatay ma tahay mid adiga dhib ku keenayso mise ma aha waxaan rajaynayaa inaa wuxuu niga fahamteen waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu